Bismillahirrahmanirrahim. Kulanti wanaagsan nabada wadayaal halkan waa wadajir news ku soo dhawaada xogaha wararka wadajir qodobada ugu waaweyn ee aan maanta soo gudbin doono waxaa ka mid ah taliyaha ciidamada xoogga dalka General Odowa oo dhaar ku maray in mar u argudi doono Allah u naxariiste taliyaha gobolka Banaadir Farxaan Qaroole oo qarax lagu dilay 30kii bishii September waxaa kale xogaha wadajir aan ku soo gudbin doonaa madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ka dalbaday hub iyo sanad ciidan si uu ku biiriyo dagaalka dhanka Al-Shabaab. haddaba dadka falanqeeya siyaasadda maxay ka yiraahdeen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo haatan ahayn madaxweyne inuu mid ka mid ah madaxda caalamka u weydiisto hub iyo sanad ciidan. warbixintan ayaa halkan ku soo gudbin doona qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan u diyaar garooba balse daawadayaal inaga qayb qaata faafinta warkan idinkoo gaarsiinaya saaxiibadin kula share gareynaya gurubyada waadna ku mahadsantihiin haddii aad aragtiina nagu reebteen qaybta commentiga ee hoose. waagaag isku soo laabasho wanaagsan oo xiiso leh. taliyaha ciidamada xoogga dalka General Odowa oo wajigiisa laga dheehan karo inuu weli niyadu ku hayo geeridii taliya Farxaan Qaroole ayaa dhaar ku maray inuu argudi doono taliya Farxaan Qaroole. taliyaha ciidamada xoogga dalka oo ka qayb galay qoran akhris ah laguna duceynayay Allah u naxariiste taliyihii ciidamada gobolka Banaadir Farxaan Qaroole oo ka hadlay goobtaasi ayaa sheegay in uu mar u argudi doono saaxiibkiis walaalkiis Farxaan Qaroole oo muddo badan shaqo wadaag ahaayeen. General Odowa oo aad u tiiraansanay marka uu hadlayay ayaa yiri inuu tuhun ku hayo shakhsiyaadkii qaybta weyn ku lahay in taliya Farxaan Qaroole qarax lala beegsado ayaa carabka ku adkeeyay in mar maxkamad uu soo istaajin doono uuna u argudi doono walaalkiis Farxaan Qaroole oo uu sheegay General Odowa inay saaxiibo dhow ahaayeen. General Odowa wuxuu yiri waxay moodaan inaan ogeyn waxay iska dhigayaan dad aan xog ku hayn sidii loo dilay anna waa ogahay in ayaga ka dambeeyaan laakiin mar waxaan idin horgeey doonaa tiirka cadaaladda si loo ku ciqaabo dilkii taliya Farxaan Qaroole. General Odowa taliyaha ciidamada xoogga dalka oo sidoo kale ka sheekeeyay wada shaqayntii soo dhaxmartay asaga iyo Farxaan Qaroole ayaa sheegay inuu u ahaa saaxiib iyo walaal labadoodana ay iska ballan qaadeen inay dalkan naftooda hurayaan cadowgana ay ka difaacayaan intii tabartooda. wuxuu yiri taliya General Odowa markii aan maqlay geerida Farxaan Qaroole waxaan ku sugnaa galguduud ma jirto sidaan ugu naxay geerida Farxaan Qaroole qof uga naxday markii laga reebo labadiisa waalid oo ayagu aan ogahay inay aad uga danqadeen geerida wiilkooda haliyay taliya Farxaan Qaroole. General Odowa ayaa sheegay inuu wado gal baaris uu ku sameynayo sida loo maleegay dilkii taliya Farxaan Qaroole wuxuuna taliyaha sheegay inuu hadda hayo nuqul qayb ka mid ah shakhsiyaad ku lug leh in qarax Al-Shabaab la beegsadaan taliya Farxaan Qaroole. cadalka ka soo yeeray taliyaha ciidamada xoogga dalka General Odowa ayaa loo fasiran karaa in qarax la beegsaday taliya Farxaan Qaroole ay maleegeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya waxaana isha lagu hayaa baarista u wado taliya General Odowa iyo halka ay ku soo idlaa doonto waxaana xilligan laga cabsi qabaa in kiiskan ku lug lahaadaan dad mas'uuliyiin ah oo arrintan aysan qof walba niyadiisa ku soo dhicin inuu ku lug lahay dilka taliya Farxaan Qaroole. waagaag daawadayaal warka wadajir news ayaa daawanaysaan. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo toddobaadkan ku sugnaa dalka Turkiga ayaa kulamo kala duwan la qaadanaya madaxda dalka uu ku sugan yahay ee Turkiga. madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 24kii saac ee la soo dhaafay wuxuu kulamo gooni la qaatay wasiirka gaashaandhigga dalka Turkiga iyo madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. kulamada oo madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la qaadanayo wasiirka gaashaandhigga iyo madaxweynaha Turkiga ayaa labada mas'uul wuxuu ka dalbaday inay Soomaaliya ku taageeraan hub iyo sanad ciidan si loo soo afjaro dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee shacabka horkacayaan ee haatan sida xooliga uga socda Soomaaliya. kulanka hore oo madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la qaatay wasiirka gaashaandhigga ayaa markii hore la wadaagay
xaaladda dalka ayaa sida ay u socdaan dagaalka shacabka kolkii horeba ka curtay ee ka dhanka al-shabaab. wuxuuna madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo 5 sano oo madaxweynaha ka ah Soomaaliya saaxiib dhow la ahayd madaxda dalka Turkiga wuxuu si faahfaahsan oo madaxda dalkaasi uga warbixiyay in dagaalka kolkii horeba ee curiyeen shacabka Soomaaliyeed uu hadda u dhow yahay guul. wuxuuna wasiirka gaashaaniga uu la wadaagay madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in deegaano badan oo al-shabaab ay gacanta ku hayeen muddo ka badan 10 sano ay shacabka qoryaha la soo baxay kala wareegeen, taasoo cadeynaysa in shacabka Soomaaliyeed diyaar u yihiin in al-shabaab ka saaraan deegaanada ay waqti xaadirkan ay kaga sugan yihiin Soomaaliya. wuxuuna Turkiga hordhigay madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in Turkiga xitaa sharaf u tahay in Soomaaliya garab ku siiyaan in al-shabaab lagu xoreeyo. wasiirka gaashaaniga dalka Turkiga oo soo dhaweeyay baaqa madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la wadaagay in wixii karaankiisa uu shacabka Soomaaliyeed ku taageerayo, balse marka hore uu la wadaagayo madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan iyo sida uu asagu u arko. daqiiqada kadib markuu wasiirka gaashaaniga oo dalka Turkiga la wadaagay madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan baaqa madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Rajab Tayyip Erdogan wuxuu dalbaday in loogu waco madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si asaga iyo madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wajiga follows ku arkaan oo ugu warbixiyo sida u socdaan dagaalka shacabka ee curiyeen ee ka dhanka al-shabaab. 2 saac oo xiriir ah shir albaabadu xiran yihiin oo yeesheen madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa ku soo idlaaday inuu madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan diyaar u yahay inuu shacabka Soomaaliyeed oo ku taageero hub iyo sanad ciidan, taasoo u suurtagelinaysa in al-shabaab ay ka xoreeyaan dalka. waxaa kaloo aan xog ku haynaa in hubkaas iyo gaadiidka dagaal gacanta laga saaray madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaana madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu Farmaajo ku amray inuu asagu hogaamiyo dagaalka ka dhanka al-shabaab, hubkan uu qeybiyo shacabka Soomaaliyeed ee waqti xaadirkan diyaar ku ah in al-shabaab dagaal la galaan. hubka culus iyo sanad ciidan ee Turkiga ku taageertay Soomaaliya ayaa shacabka Soomaaliyeed la sii doonaa marka uu madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dalka dib ugu soo laabto. sidoo kale waxaa la qorsheeyay in hubka oo Turkiga Soomaaliya ku taageeray qaybtiisa koowaad gacanta laga saaro shacabka gobolka Gado, halkaas oo weli aysan ka bilaaban kacdoonada shacab ee dalka intiisa badan ka curtay. waxaana wajiga labaad hubka Turkiga la gaarsiin doonaa gobolka Mudug oo haatan si xooli ah ay ugu socdaan kacdoonka shacab. dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda ayaa qaba in waqti xaadirkan ay soo idlaatay al-shabaabkii ku xooganaay Soomaaliya, waxaana dadka intooda badan ay qabaan in Soomaaliya 2023 u curo doonto dal Soomaaliyeed oo amni ah, dadkiisana isu kalsoon yihiin, dalkuna uu barwaaqo noqon doono. guud ahaan daawadayaal halkaas ayaan ku soo gabagabeeynaa wararka wadajir. nabadgelyo.